xubno ka tirsan golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland xildhibaano salaadiin waxgarad aqoon-yahan abwaaniin fanaaniin iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah ayaa ka qayb galay aas qaran oo magaalada Hargeysa loogu sameeyay Allah u naxariiste fanaankii weynaa ee Maxamed Maxamuud Ciga Pusi oo habeenkii xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allah u naxariistay waxaa magaalada Hargeysa aas qaran loogu sameeyay haldoorkii fanka Soomaaliland marxuum Maxamed Maxamuud Ciga Pusi. waxaa ka soo qayb galay aaska marxuumka xubno ka mid ah golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland, wasiirka wasaaradda maaliyadda, wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda, wasiirka maalgashiga, xubno ka mid ah golaha baarlamaanka, guurtada iyo wakiilada shacabka Soomaaliland oo boqolaal gaadhaya. Allah u naxariistay Maxamed Maxamuud Ciga Pusi waxa uu ku sifoobay shakhsi wanaagsan oo dad la dhaqan leh isla markaana ka soo qaatay qayb muhiim ah dhismihii qaranka Soomaaliland haddii ay tahay guubaabada wacyigelinta iyo dhismihii qaranka iyo marxaladihii kala duwan oo soo maray. Maxamed Maxamuud Ciga Pusi dadkii aaskiisa qaran ka soo qayb galay ayaa ku sifeeyay adoon wanaagsan oo ummadda isu soo dhaweeya, hadal wanaagsan oo farxad ku noolaa. waxa uu kaloo ku suntanaa oo aqoon u lahaa cilmiga maadiga iyo diiniga oo bulshadii fanka ku guubaabin jiray xagga aqoonta iyo xagga diiniga. Allah u naxariisto Maxamed Maxamuud Ciga Pusi oo door muhiim ah ku lahaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dadkii aaskiisa ka soo qayb galay madax iyo mas'uuliyiin kaleba waxay ku tilmaameen sidan. halkan taasi tiiraanyada uga tareynaa dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta, caa'iladii iyo ehelkii uu ka geeriyooday fanaankii weynaa Maxamed Pusi. waan isleeyahay runtii wuxuu ahaa tiirarka maalintii dhaweydii 26 Juun aanu aad ugu baahanay oo aanu la wareegnay cid booskiisii buuxsana aanu weynay. qof kastoo ummadda runtii muddo aan ka badan 45 sannadoodna ummadda u soo shaqaynay oo ku jiray waxaan la yiraahdo shaqada ama public service lagu magacaabo ama shaqada dadka loo qabto. ilaahay waxaan uga baryaynaa caruurtiisii iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo caa'iladiisiiba ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. kullu nafsin daa'iqatul mawt. ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa marxuumka inuu naxariista janno ka waraabiyo, samir iyo iimaan ka siiyo ehelkiisa iyo bahdii la shaqayn jirtayba. ilaahay u naxariisto jannatul firdaws ka waraabiyo dhammaan inankiisa Cabdisalaan iyo caruurtiisa kale, ehelka qaraabada, asxaabtiisa, banki fahdo ku jiray Soomaaliland oo dhan ka tacsiideynaya ninka weynay naga baxay. ilaahay u naxariisto inagana inaynu ku cibro qaadano taasayna wada sugaysa. Allah u naxariisto. laakiin Maxamed intaan aqaanay muddadan wada joognay wasaaradda warfaafinta wuxuu ahaa nin dhaqankiisa iyo dabeecadiisa runtii agaasimayaasha ugu wanaagsan ugu hawlkarsan buu ahaa. Allah u naxariisto marxuumku wuxuu ahaa heesaa muxallan jilaa, wuxuu ahaa ciyaaraha dhaqanka nin ciyaara, musician buu ahaa, wuxuu ahaa nin meel kasta jokerka meel kasta gala buu ahaa, wuxuu ahaa isudubaride aad u wanaagsan oo maamulkiisuna aad ugu fiican yahay qaybta dhaqanka oo dhan. Allah u naxariisto. ilaahay waxaanu ka baryaynaa maanta ergeynu nahay inuu ilaahay dambigiisa iyo dunubtiisaba dhaafo, inuu ilaahay jannatul firdaws ka waraabiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan tacsi tiiraanyada u diranaa qoysaskii, ehelkii, qaraabadii, asxaabtii iyo dhammaan shacbi weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland geeridii naxdin lahayd ee marxuumka ku timid. gaara waxaan uga tacsiyeynaynaa runtii Cabdisalaan Maxamed Maxamuud oo ah madaxda sare ee wasaaradda horumarinta maaliyadda. marxuumku ilaahay u naxariisto oo sida laga waramay abwaan weyn oo taariikhda Soomaaliyeed guud ahaan magac ku leh buu ahaa, nin afkaaban oo runtii magaranaysa qiimo leh buu ahaa. ilaahay waxaan uga baryaynaa jannooyinkiisa waasaca inuu ku arsaaqo. mawt naf kasta oo ilaahay abuuray waa si dhadhamiso wadka adoonka dhintay ee hadda aynu u taagannahay aaskiisa salatul janaasadiisina aynu ka soo qayb galnay. waxaan leeyahay ilaahay dambigiisa ha dhaaf. amiin. ilaahay dambigiisa ha dhaaf. amiin.
ereyga u qaalisan ee miftaaxa naxariista rabbii waa istakfirullah ilaahay dembigiisa ha dhaaf wuxuu ahaa qof wanaagsan oo nadiifa aniga meel bay xanuunayso ardaygayg buu ahaa weliba anigu ragga da'da dafira miihee wuxuu ahaa elementary school isagoo ah oo surwaal gaaban ximaal macallin lahaa isagii cadarrahan ag taagan hadda oo markhaati ka ah iyo cabdiyarahan hadda isaga madaxda waaba walaalkii cawilna waa ka xusuusiyey ilaahay naxariistina ka waraabiyo injineer haysna isku kalaas bay ahayn waxaan leeyahay way naga wada baxay ilaahay naxariistina ka waraabiyo ilaahay dembigiisa ha dhaafo nin muwaadin uu ahaa oo Somaliland oo halgamaaya waa heestiisii uu inooga tagay waynu haysanaaye Somaliland dalkayga Somaliland dadkayga ninkan maanta inaga baxay ee magaca sharafta leh weyn ku lahaa iftiinka intii uu joogay fanka iyo suugaantana waa dhaqanka iyo hidaha Soomaalida qaalibu ku ah quraanka uu yiqiin diintana uu yiqiin nabigana uu yiqiin ilaahayna uu yiqiin dadka kabtanka badan buu ahaa laakiin la yiraahdo ala lakood waxba ilaahay ugu qaadi maayo wa alaaniyatukum tarisuqun balid wa alaaniyatukum tarhamun ilaahay wuxuu qalbigiina ayaa idinku naxariista idinku naxariista marka waxaan hubaa inuu hoosta ka ahaa qalbigiisu daahir maantana waa balayno tusayo ilaahay aqoonsada buu yidhi maalin ciidan oo jimco ah oo islaamka caan u ah ayuu dhintay intaasina way isugu tumiyo islaam ummadii Maxamed ninkaas 1985 markii aan ku soo celinay riwaayadii loo oran jiray alla aamin ma iisho afariyadii aanu dhignay laakiin 16 sanadood dabadeed aan ku soo celinay 85kii ayaan isbaranay tiyaatarkan ku bartay wuxuu ahaa aad u firfircoon heesaabu ahaa ciyaartooy buu ahaa wuxuu ahaa haddana ciyaaraha Soomaalida iyo dhaqanka wilwilada ninka u haysta buu ahaa wuxuu noqday wuxuu wadaba mas'uuliyad ma ka soo baxay wuxuu noqday mas'uulka labaad iminka oo Cabdiyarun baa ka sareeyay ilaahay qabriga ha u nuuro naxariista janna Allah siiyo